وانو فلنيا خير كيس وانو فلنيا annaga iyo intaan ka marti soori karno intaan saaxiibalaan oo ku filan yahay intaan iimaanka isgelino aan isu soo laabano annagu oo aan iscafino meel dhiig muslim lagu daadiyay oo dad muslima lagu xaqiray oo gabdha lagu kufsaday oo hanti lagu qaatay ee aan la isku cafin ee haddana maalin walba leeyahay khayr ma ka yimaado oo khayrka meesha ma badhigina xaq ka imaana khayrku meesha in la geeyo Soomaa ya khayrku meesha in la geeyo baahan yahay koobkaas dhaladaas waxaan ku jirin haddaan ka raadiyo nafteeda baan u sheegay dhaladaas aan ma ka keeni karaa malab wax kale kama imaanay biya ka imaanay soo annaga maxaan sameeynaa si wanaag u yimaado wanaag miyaa sameyn ilaa aadin ku og wanaagaan sameeyna waa aad u xadidan yahay dadkii wanaagsanaan la arkaba gurigiisa fadhiistay albaabkiisa xirtay waxa uu raaniga waxba kama qaban karo hadda adiga wax ka qaban kariyaa ka qaban kara nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaanu noolay 63 sano sida culimadu noo sheegeen 23 sano dacwada wada diintaan aragteen 23 sano ku gaarsi waxa lagu soo diray asagoo fardi ah wuxuu ka tagay ummadda toosan oo isku diba dhacsan annaga ma waxaan kari laanahay kun qof oo rag iyo haween oo u istaagta nabadda dib u heshiisiinta caafimaadka dadka la gargaaro oo ay runta wax ka rabin gurigiisa ka bixi jiray asagoo nadiifa galabtii wuxuu soo laabanaa asagoo boorle oo daalan habeenkii oo seexdaa salaatu leelo u istaagaa subaxdii meesha uu ka bilaabo 25 sano sidaas ku dhameystay haddaan nahay ummatu Muhammad haddaan nahay muslimiin waxaan la gudbo waa inaan ogaanaa waxaan la gudbo waxa waaye yani ikraam ad-dayf ikraam al-jiran yani masaakiinta la qoodiyo masaakiinta la kaalmeeyo taas nabiga nooga tahay sallallahu alayhi wasallam maanta waxa yimiday dad lahaa inaan ku dinaan jannada ku galaan war jannada saas lagu ma galo يعني waxaan rabaa dhalinyarada la marin habaabina inaan wax yar ka yiraahdo maxay yihiin dhiig la daadiyay janno lagu ma galo dhiig xaq daro lagu daadiyay yaanu wada janno lagu ma galo waxa socda maanta waa fitno muslimiintana ceeb ay ku taameelo joogaan marka caruurteena inaan ka warqabno annaga waxaan ku faanaa diinta islaamka ay nagu soo gaartay nabad weligeed dagaal kuma dhicin culimadu markaan geela raranana waa daba kici jireen markaan magaalo tagnana waa bari jireen sidaasay wax nagu soo baraan ilmaheena quraanka wada yaqaan gabdhaha quraanka yaqaan dadkii quraanka yaqaan soo aragnay maxay waxaan isbedelay markii dhibaatada timida aan rabnay inaan u fakano diinta iyo culimada miyay timida in dadka lagu dilo diinta billahi alaykum kaas aqli ma see u fasirayna islaamka oo nabiga noogu sheegay inuu salaam yahay oo quraanku noogu sheegay ayuha alladina aamanu dkhulu fi silmi kaafatan inuu yahay dagaal iyo dhiig la daadinayo see ku ogolaanayna ma ogolaa kar annagoo dhan waa aamusanahay annagoo dhan waa murugaysanahay annagoo dhan waa fikirayna waxa leenahay war waxaan ma islaamka la sheegay ama wax kale ma islaamka waxa laga yaabaa nin walba inuu shakiyo war islaamka ama sidaan ahayba ma aha islaamku sidaas islaamku waa nabad islaamku waa wanaag islaamku waa dhaqan wanaagsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq muxuu yahay ضعيف كو لو غرغارو مرتدو لا سورو ددكو لو wanaajiyo akhlaaq wanaagsan dadka lagu tacaamulo waxa dhacay caalamka islaamka maanta markay waxay waxaad arkaysiin marka qof walba Soomaali ama qof walba muslim markuu ila boorka maraayin leeyahay laba daqiiqo ku baahna maxaa dhacay kaliya muslim iyo Soomaali maxaa sameeyay asaga ma nin kala sameeyay marka maxaa uga hada aniga dambi nin kala uu sameeyo ana qaani meesha ka yimid ina iska bariyaana loo baahan soo saasma marka codkiina meesha aad joogtiin waa ina kor u dhigtiin sababtuna waxa waa dawladda indifaacayso weyn ma joogto ina isku tagtiin community adaga naqatiin fikradiina ay cadda hadda xishootiin leedin ma deynay guriyaha la ku iimaana marka ilmahana in la wacyi geliyo baahan culimadu waa joogan shimaama xaashi rag badan jooga khayr la siiyo dacwadii wada u geeyo ilmaha muhaadaraad loo sameeyo hal la wacyi geliyo diintan waxyaabaha yani diimihii soo dago dhan waxyaabaha lagu mataqaanay ku kala duwanaa waxa kamida mid la arkaba mowduuc gaar ah ka hadla jirtay ay xoog saar jirtay ayagoo usuusha isaga mid ah marka waxa la rabaa qadiyada ictimaado cusboonaata in la cilaajiyo culimadu ay ka hadlaan dadka ay ka wacyi geliyaan si ala bayna ugu noolaato laba shay ba mushkil ku noqonaysa inaad diintaada ka carartid dhibaato kugu noqonaysa
in diintaada wax lagu dulmiyo adigana dhibaatay kugu noqonaysaa marka labadeeba waa inaan ka fikirnaa aanu